daawadayaal kusoo dhawaada bahda farshaxan media. Maanta waxaynu ka hadli doonaa qormo aad u muhiima taas oo ah 5 koodh oo ay muhiim tahay inaad ku ogaatid moobilkaaga Android-ka. Waa 5 koodh oo ku shaqeynaya dhammaanba moobilada Samsung-ka. Marka 5 koodh mid walba waxa uu qabtaa shaqo gaar ah waxaana ku tusayaa feature ama settings gaar ah. Fadlan haddii aad ku cusub tahay ha moogaanin inaad ku soo biirtid bahweynta farshaxan media si aad noola socotid oo aan annaguna u ogaano taageeradaada si aan ugu dhiirano. Waa 5 koodh oo ay muhiim tahay inaad ogaatid. Koodhka koobaad waxa weeyaan tijaabi samaacadda ama gariirka kamarada iyo bluetooth-ka moobilkaaga adigoo koodhkan raacaya ama qoraya. waa xidig 4 gees 7 3 5 3 iyo 4 gees. koodhkaas wuxuu na tusi doonaa samaacadda iyo gariirka iyo bluetooth-ka iyo kamarada waxyaabo badan oo aynu tijaabin karno. tusaale ahaan vibration haddaad ku dhufatid moobilkaagu wuu gariirka moobilkaagu shaqeynayo ama speaker-ka haddaad taabatid. dhiminku waa kalaradii, kamaradu waa kamarada inay shaqeynayso, bluetooth-kaaga inuu shaqeynayo. waxyaabo badan ayaad ogaan kartaa. koodhka labaad waxa weeyaan adigoo tijaabinaya touchka ama touchka moobilkaaga iyo waxyaabo kale badan oo iyaguna ku hoos jira touchkaagu inuu shaqeynayo iyo kale oo si fiican u shaqeynayo. waxaad taabanaysaa koodhka halkan inoogu qoran ama aan moobilka ku qorayo touchka moobilkaaga iyo front kamarada iyo waxyaabo badan inta halka ku taal oo dhan waad tijaabin kartaa iyo kalarada iyo kamaradaada hore iyo waxyaabo badan ayaad ogaan kartaa oo tijaabinaysaa. waana koodh ka yar fudud xidig 4 gees 0 xidig 4 gees. marka waa koodh fudud oo kuu fududeynaya inaad tijaabiso. koodhkan saddexaad waxa weeyaan inaad ogaatid serial number-ka moobilkaaga ama waxa loo yaqaan IMEI. waa xidig 4 gees 6 4 gees. waxa weeyaan verification-ka ama waa identification-ka moobilkaaga weeyaan. way kala wada duwan yihiin. ka sare soo serial number-ka ka sarena waxa weeyaan IME-ga. way koodhka afraad waxa weeyaan ogow cidda moobilkaagu ku xawilan yahay markaad mashquulka tahay amaba lama heli karo yahay. haddaad lambar ku xawilatid ama qof kaaga xawilay sidan ayaad ku ogaan kartaa. marka kaarka doontid baad ka garaacaysaa ama Telesom ama Somtel kolba kii aad doontid adigu kii aad sidatid ama Golis ama Hormuud kolba kii aad sidatid ayaad ka garaacaysaa. anu simkaasaan ka garaacay lambarkaas uu ka xawilay halkaa aan qariyay ayuu ku xawilan yahay. waayahay adna markaa kaarka doontid ayaad ka garaaci doontaa. koodhka u dambeeya ee 5aad waxa weeyaan insufficient storage error. waa cilad inta badan moobilada ku timaada oo dadku ay ka wada cawdaan ayaa waxaad ka saaraysaa ayaad ka hagaajinaysaa isagoo moobilkaagu aan waxba ku jirin insufficient iska yiraahdaa. marka xidig 4 gees 2 9 2 eber iyo 4 gees isticmaalaysaa. dabeetana waxaad ka delete gareynaysaa delete damsat lockup ka halkaa waxa weeyaan line-ka labaad ayaad iska delete gareynaysaa. waka delete dam fileskaas iska delete gareynaysaa. moobilkaagu sidaas oo optimization-kii ku qaadanaya. fadlan haddii aad ku cusub tahay ha moogaanin inaad ku soo biirtid bahweynta farshaxan media si aad noola socotid oo aan annaguna u ogaano taageeradaada si aan ugu dhiirano.